shirkadda DPWL ee maamusha marsada magaalada Berbera ayaa waxay wax ka bedel ku samaysay lacagta tacriifada ay ka qaadi jirtay ganacsatada kala duwan ee reer Somaliland isla markaasina wax kala soo degay dekedda magaalada Berbera waxaana arrintaasi sababtay in ay shaqo joojin sameeyaan ganacsatada kala soo degi jirtay alaabtu taasoo ku aadan tacriifadaasi sidoo kale ganacsatada kala duwan ee reer Somaliland ee alaabaha kala soo degay dekedda magaalada Berbera ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen arrintaasi iyadoona gaadhay xukuumadda Somaliland muqbaahiyaha caalamiga Star TV ayaa wax ka weydiiyay dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Burco arrintaasi waxaana dadweynahaasi si weyn u dhaliileen kordhinta tacriifadaasi iyagoona dadweynahani tilmaamay in markastoo shirkadda DPWL wax ku kordhisa ganacsatada ay ka go'an tahay dadka danyarta ee shacabka ahi dadweynahan ayaa fariimo kala duwan u diray xukuumadda Somaliland waxaana yiraahdeen arrinka DPWL ee laga soo sheegay qaylada ka dhacday magaalada Berbera ee la yiri in loo xaqsooro dadkii meesha laay u dhashay bacamsariga iyo shirkad ajnabiga oo markii horeba meesha fuuqsatay maanta haddana rayigii waxay doontay inay wax ku casuurto oo ummadii xaq u lahayd laga duujiyo xaqeedii waxaanu aragnaa haddana dadweynaha sharci darro sababtoo ah DPWL markii hore ayna soo gashay ayaabay sharci darro inagu soo gashay wixii ayna la gashayna wuxuu noqday wax been ah ilaa imika wax documentka lama hayo dekedeeni bay haysataa airportka bay qabsatay inta marka xasilisay haddana maanta waxay ku dartay ummadii masaakiinta ay waxeedina cunto oo waxay doonto ku casuurto dawladda waxa loo arkaas waa xaq darro marka hore soorto waxa inaga go'an dawladda aanu sahayn masaakiinta way cashuurta way si tuunaysaa mooyaane iyadoo ma kor inoogu sii qaadaysa cidii loo baahnayd inay waxaan hoos u dhigto iyo qoladii mashruucan wadatayba iyagu u heshiiyay ummadan si ay kor ugu sii qaadaan meesha wax ka baxay dawladii loo baahnaa inay waxaan xakamayso masaakiinta ay laxdo dawladda imika dhaaxan leeyahay kordhiyay waa wax ka go'an masaakiintan iyo ummadan meesha ku dhaqan dalaan ictiraaf lahayn waa diyada aqoonsi ku lahayn oo ictiraafkiisu ganacsiga yar u dhaqdhaqaaqay yahay oo markii xoolii laga joojiyay haddana intii bariiska kolba loo rorooyay laga joojiyay oo maanta DPWL loo xilay waa maqlaysan waxa hal xaaraan nirig xalaal ma dhasho marka hore ay ku timi DPWL wadanka waxay ku timi waa xaaraan waayo wax heshiis oo rasmi ah oo caalamku galay oo lala galay ma jirto waa ogeydano kala fadhigi baarlamaanka waxa nuxur baa la keenay nuxurna heshiiska rasmiga ma ahayn maantana kuwa meel jooga waxay wakiil u noqdeen halkii dadkooda wakiil u noqon lahaayeen waxay wakiil u noqdeen DPWL dadka waxaan leenahay aayahooda ka tashadaan ummadii ishii kaliya hayda Berbera iyo dekedii kaliya hayd ee ummadii wax soo degi lahaayeen ee dadku ganacsatadu ay dad ku noolaa ayaa maanta cuna qabatay la saaray dadkii abaari ku dhacday oo biyalaana hayso oo danyaraan halka taagantay maanta haddana dhaqaale kale lagu sii kordhiyo ubadka wax baranay maxay wax ku baranayaan xagee u socdaan waxaan leeyahay Muuse Bixi arrinta maanta uu galay isaga iyo wasiirkiisu waa mid xaaraana marka waxaan leenahay dawladda ha naga deyso nimankan DPWL imaaraadka aan waligood arag habeenna gaajo ku seexan dawladdu sidii hore gacanta ha ugu qabato maciishadana hoos ha u dhigto cashuurtana danyarta ka jabiso waxaa leeyahay dawladda waxaan sheegayaa iyo ganacsatada waxaan sheegayaa DPWL waxa dadka shacabka la soo galaysan wax khuseeyo maaha waa wax dadku waa danyar weeyaan waa inay dawladdu hoos ugu eegtaa ganacsatada waxa leeyahay nin walba ku xisaabtamin si sanad gudaheed aad limit ugu noqon lahayd mataajir ku noqon lahayd shacabku waa shacabkaagi dadku waa dadkaagi lacagtan iyo waxaan aad wax kaga iibinaysaa waa inay waxaadna wax kaga soo noqdaan iyaguna ay wax ku iibsan karayaan noqdaan dawladda waxa soo jeedinaa leeyahay kala dhaxgal shacabka iyo ganacsatada cashuurta ganacsatada lagu kordhiyayna waa xaq darro DPWL nama xukuntay Somaliland ha joogto cashuurta dalqaabka ay leedahay DPWL maxaan oo keenay DPWL ma meeshayna la leedahay ma wadankayna la leedahay sidee way arrinku ina bixib maasha ma isaga loo doortay mise DPWL baa loo doortay haddii isaga loo doortayna ha ka jawaab haddii DPWL loo doortayna ha ka jawaab dadweynaha soo tuban ee dad kale ee dhiigga loo shubay inuu isagu ka mas'uul yahay ha sheego haddii DPWL ka yeena ha sheego dadweynuhuna ha dhageysto ka waxaan leenahay dalka wax ku qabato maamulkana dawladdu gacanta DPWL ka baxdaba waayo waxa laga jaray dadkii danyarta ayaa laga jaray ka goosan ganacsatada marka meesha danyarta baa ku baabaaysa ee lacagta inay kordhisay ay ganacsatadu wax kula soo degaysay lacagta dii ay jirto la kordhiyay sideed kuma laga dhigay horta laguma kordhin ganacsatada laakiin waxa lagu kordhiyay ay ka go'an tahay dadkeena wax laga iibinayo suuqa jooga ganacsatadu iyadoo 7 kun laga qaadi jiray bay inaga 12 laga qaadi jiray maanta 8 iyo 9 sheegayana 5 iyo 13 laga qaadaya wa Khalid Bakayle wararka muqbaahiyaha caalamiga Star TV Burco.